dastuur keeda eerkii wada sharcigeega rag indhaha ku soo jeediyay dabkii halka duubay waxay ahaayeen warbaahinta caawa xiran been mudan madaxweyne wax weyn oo dambiyo warbaahintaasi gashay madaxweyne oo la soo xaqiijiyay ma jirto wadaba warada ku yaan madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad inamada warbaahinta qaar koodna way xanuunsanayaan inaad u soo celiso xorriyadooda qaar adoo ixtiraamaya duruufaha adag adoo ixtiraamaya maad aragtay ragga dhalinyarada ee qaranka u heeliya maalmaha ay hakradaan kuwii ku qaadanayay mushaarka iyo baabuurta waaweyn ee maad qaranka u heeliya maalmahooda gudan waayaan kuwana astura ceebaha qaranka iyo goldolooyinkiisa kuwana astura sidee u gudan waayaan kuwana astura ceebaha qaranka iyo goldolooyinkiisa kuwana adiga iibin lahay iyo maartay iyo tawfiiqda ummadda soo iibin lahay haddii maalin wan beersad kamida oo inan kamida ka leexday isteerinku ma meelan doonay roobigu yariba miyaan iyagu dulqaad lahayn madaxweyne mudane madaxweyne waxa la xiraa saxaafad waxa la xiraa qof tan yaroo meel ka hadlay sharcigeenu iyo dastuurkeenu mudane madaxweyne goormuu xirayaa kuwa sharciga gacantooda ku qaatay goormuu xirayaa dastuurka xiraya dadka ummadda iyo kuwa sharciga gacantooda saarayay u adeegaya 5 sanadood baa fadhida hal qof Soomaali looma xirayo dadka hal qof wood uu sadbursaday uuna lahayn uu khalad u isticmaalay looma xirin laakiin waxa la xiro maalin walba laga dhigtaa maxaa la yiraahdaa marmarsiyo qof miskiin ama nin wariyo miskiin oo sharci u jireeyay qaarkoodna dambiyadii laga galay ee la weeraray iyadoo kala yiri baaran marayna ragga hay'adaha ku qab madaxweyne labadaas ka soo siiday oo bil hore mas'uulada intaas ka baxay dayminka 12 iyo obira waxaan tagay xarunta CID-dan tagay laba dhacdo wariyaha taliyaha ugu tagay maxaa la yiraahdaa CID-dan ku dhaado ka soo bedel maxaa la yiraahdaa saldhiga dhaqaaqsi laga soo xiray baaristuuda halkay maraysaa ugu tagay markaan nin aad u wanaagsan oo diini ka muuqatay dadnimo ayaa jooga maxaa la yiraahdaa hoggaanka maxaa la yiraahdaa CID وهذا احترام بدن أكتر ودي قرار مرح بنابر أول كنا خل الصبح أيها وحى سنة كي بوليسك وكذا بقول لي جاري يتلي أراريده أيها باب يوريد ما حصل كلام يريد وقال لي حاد كسر دونتي أيها يقول حرمت ما هو يدا باره سأقول من القرن كله هذا ما قرن كات هيبود الصومال لا بات هيبود قرب محمد أبي وعدو الصومال لا نقضي وحوي ديني يا تنك وحوي ديني يا مدحوينه وحوي ديني يا هيدا كل شركة قعدت كوين ويديني يا هكذا عدو الصومال لا كوي عدين تسال قدوني يا تنك هني ريع كران هذا الله يرد ضعيف كا يكون قرابتان kuwa ummadayna u shaqeeyay ka baxsaday wuxuu adeegsaday wax kasta oo qof ku hanjabi karo maad moodayn janankii booliska xeerkii iyo kala dambeyntii nabadgelyada ku hayay marag iyo marxaati bay la soo danib baa taagnaa saasuu gacanta warfinayay kelmadaan weydiinayo een dadka ogeysiinayo waxa weeye wuxuu yidhi annagaa shaar kulee kuu gelin doonne annagaa naqaana halkaan ku gelin doonno waxaa weydiinayaa taliyaha halkeedi geynaysaa maadi dilaysaa maadi qafaalanaysaa waa ku weydiinayaa kii soo doortay waxaan u sheegayaa haddii lay waayo muddo haddii nafta aan
wad ilaahay mooyaane turo kale soo gaadho janaka booliska loo raacay jabaadiisii annaga garanayna halkan ku geeyeen dhowlaha kelmadii ugu dambeysay ku gabagabeeyay xuri xerow ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo galmeys daba gal waxa weydiinaya xiriyaa ciidanku ma xiriyaa ciidanka booliska ahayn kuwa shalay la miisaanada loo kordhiyay ma ciidanka boolisku in miisaanadooda lagu dagaalamay meenay kuwa dhisay ma habeen iyo maali booliska ahayn xiriyaa booliska ma daba galaalay ma guriyiisiba madaxweyne adiguna sharci baad ku tahay madaxweyne hanjabaada caynkaasa iyo dembiga caynkaasa oo marag lahayd waad u tegaysaan garyaqaan xuseen shabeel bay la socday hadda iminka wuxuu joogaa xafiiskiisa uu joogaa hadda isaad u socotaan waad duubaysaa weydiinaysaa intaan iminka sheegayo ama dadka maaf qaado ma wanjalo intaabaad halkaa ku weydiinaysaa waa kan xafiiskiisu naga sii jeedatay anu janankii booliska ku aqaanay qof burcado umada wanjabo kuma aqaanay taliya istajiyo waxaad iga cabanaysaa sheeg baan kuri maala ka caban karu ana halka goyniya garanaya halkeed geynaysaa de taliya halkeed geynaysaa ma Morgan baad noqotay iyo kuwii dadka iska leeyin jiray ayaad noqotay ma filayeen noqoto dal dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland baa taliya booliska noqota xeer madaniye baad noogu shaqaysaa dadka nabadgelyada shacabka Soomaaliland baa kala shaqeeya saxaafadda kala shaqeysa annaga kala shaqeyna waan ku aqli celinaya taliya janana hore soo maray horta booliska wuu dhisnaa qof walba maalin buu imanayuu ka tagaya inaad xoog wax ku xalliso taliya ma ha boolisnimadu inaad dadka waajibto ma ha boolisnimadu inuu sharcigu shaqeeyo inuu sulxigu shaqeeyo inaad dadka isku wado ayaad booliskayga fiican ku tahay annaga day taliye yaad ku tahay kursigan cidna male cidna kama bixin anna waan ka tagayaa shalay baa la doorto sanad baa dhammaaday adna waa ka tagaysaa kuwa horna way tageen kullu man calayha faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وحوار إلهي وباجرة وجهي سيء كرامتي سيء عدمتي سنباجرة وانكو عقلي علنيا ضل كان نوعكم صور اسمين أو شرعي جاي أود وكذا صوت ورطي وفي له يستاجو وكجور يستاجي يحرمه شيء دونا مدحوينار كانوا وحكوا بيسينيا أنا دعوت كلا قضب كاستحادة دعوت كلا ضد يسوع تبي بنو تجسيه جديد وورقد له سكر وصوب بارلي تبى كان سنة كيود عين كاو دقم بيار ركضه إلا الشعب كريم سومالن مير توكتان ده وح هذا أما هذا alla doonaya qof kasto soo doorateen iyo qof kasto xil idin qabta hadduu idin ka shaqaysto kaydin dalku mu jiriya ma jiriyo anu waxa jecelahay maalintan qaldan inay shacabku qabtaan runta sheegaan oo qabsamo wada raali gelin baa idinsiinaya maalintan qoman inay la garib taagan ayaan jecelo shacabku inaad niyad jabtaan waxa doonaya inaad dalkan ugu soo shaqeysaan sidii ugu shaqeey jirteen inaad iibisaan himilooyinkiisa himadiisa iyo siduu ilaha maalmo maanta oo dul qaadataan maanta la helo rag baa idinka danyar oo idinka magac yar oon cidina maqlin raggii soo fiqi laabatiintii dul qaata ظروف تعرف كل شقية ركبة يضح يا لا ما نبت لا يدك علي الدنيا قلت تعرف يا رجال